maanta waxaan ka hadlayaa qodob aad iyo aad u muhiim ah bulshaduna ku haya xanuun qodobkaas waxa weeye qodobka dhalinyaradii siiba caasimadda Hargeysa waxa jirta dhalinyaro badan oo koox ah oo ku soo badanaya magaalada dhalinyaradaasi markii hore waxay ahayd inay mobile intay qof ka qaadaan la cararaan oo dabadeetana mobilkoodan way ku ekaadaan imika waxay noqotay qurgooyo waa qaatiliin xaafadaha qaar baa la sheegayaa intay toban soo raacaan oo afka soo duubtaan ay qofkii ay qabtaan laba qof haday yihiin sida qof haday yihiin 10 kaas qabanaya waa la baaranaya wixii ay sitaanba waa laga baaranay marka wixii laga qaato mobilkii iyo lacagtiiba tooreba la dhacayo qofkii isagoo nabar qaba dhaaw xalis ah waana meel laba uga duweyn haday wadna kaga beegayaan haday beerka kaga beegayaan kelida meelaha halbuulayaasha bay kaga dhufayeen si qofkaasi aanu keen dhibaatadaasi aad iyo aad baa looga qayliyay masaajidadii waa laga hadlay qaar waxaan u sheegayaa taliyaha booliska arrinkaas inay arrinka aad iyo aad xoog u saaraan xaafadihii waxay taagan yihiin dadkii waa cashuur bixiyayaal qof waliba wuxuu leeyahay inaan gaar kala qabsado iyadoo booliska joogo ma wanaagsana waa in boolisku nabadda ilaaliyo laakiin haday haddana isagoo booliska dalka joogo haddana gaar kala la qabsado suuragal maaha waxa jirtay habeen dhaweyto in la sameeyay inaan inta la qabtay toore la dhacay uu noqday maxay tahay dhaawac serious ah oo dirqii Allah ku kacay xaafado badan taas way ku soo noqnoqotay marka dhalinyaradan waxa u geynaya waxana waxa weeye waa balwadiyo soo badatay marka hore qaad uun baa jiray oo inta la qaylaaba la oran jiray hadda waxay noqotay drugs kala soo biiray arrinkaana hadii aan wax laga qaban waa inaan jeelal waaweyn oo dhaqan dadka lagu dhaqan celiyo aynaan u sameeynin waxba socon maayaan saldhigan baa lagu xirayaa jeelka shancaadiga baa lagu xirayaa wuxuu ugu tagayaa mid isaga ka daran inta qof soo dilay oo ku xiran oran maxaa lagu soo xiray mobile baan la carayo hooyadii bay soo xiratay oo maada waxba dilay maada waxba marka isagoo halka 10 kale ku soo qaatay ayuu soo baxaya marka waxaan soo jeedinayaa arrinkaas wuxuu ka baahan yahay tala aad iyo aad badan oo tala qaran in la iska kaashado culimaa oo diin madax dhaqameed golayaal maxay haytay xukuumad in la iska kaashado oo la yiraahdo war inaan ka yare ee waxaan ku maamay marka la xiro hooyadiiba kiishad sidato nasaligi tagtaabay oranaysa inaan kaygu masaajid buu ku jiro waxa ma sameeyo aan soo jeedinayaa inamada in la xanuujiyo oo talaabo adag laga qaado si aan wax ugu noqon haday shaqo la'aan ka cabanayaan dalkiiba waxaynu ku haystaa Oromo Yemen baa joogta Bangladesh baa jooga waxay ururinayaan maalintii $3 iyo $5 ay meel ku ridanayaan bariskooda iyo meelahaas ay ka yaganayaan lacagta ay maanta soo shaqeystaan cunimaaye sanad buu joogayaa isagoo $2,000 sita ayuu ganacsi kale u bedelayaa keenina wuxuu doonayaa in baabuur loo iibiyo oo laga fitis loo iibiyo oo qaadkiisii helo oo gaadhiga shida loogu shubo oo mobil xagee waxaas yaalay waxaan leeyahay dhalinyaro haddii shaqalaha ka cabaraysaana shaqada halka hoose caalamkuba nimanka haruud maray ee Mareykan iyo Yurub waxaad arkaysaa mid gidaar taagan oo saan way jiray wax u sameynaya ninkii tagay baa tagay maaha dhulkan la qurxiyay ragaasi inta soo sanadood bay u tabcayeen waxaan leeyahay dhalinyaro haddii shaqalaha ka cabanaysa shaqada halka hoose ka soo bilaaba kii jaamacadda ka soo baxay intii uu shaqadiisa helayo wax kale waxa la sheegay inaan jaamacadda ka soo baxo taksiilo noqdo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya dhalinyarada noocaas oo kale markaan shaqadayda helo buu yiri ayaa taksigan aan iska bedelaya marka waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkii waa badiyay arrinka dhalinyarada culays badan buu ku hayaa waa in meel looga soo wada jeesto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh